khudbadeena walaalayaal sida dareemaysa waxay ku saabsan tahay inaynu isaga digno bahasha la yiraahdo qabyaaladda oo ah qabiilka oo si xun loo isticmaalo run ahaantiina in badan oo inaga mid ay dareemayaan duulduulka qabyaaladdu dadka dhexdooda dhibka uu ku hayo hadda siiba marka uu ka soo yeedhayo bulshada inta hogaaminteeda madaxda iyo madax dhaqameedka iyo dadkii ummaduba ay eegayeen waxaan ka sixi lahaa cudurka noocaasa oo in qabiilka si xun loo isticmaalo oo dadka qaarkoodna cirka isgeeyaan qaarkoodna dhulka lagu tuuro aad buu islaamkeenu uga digay mabaadida kale xataa gaalada waxaanay qaadan inay ka soo horjeedaan weeye hadday qaataanna si kale ay u qarsadaan islaamka ka horna wuxuu ahaa arrinkaas halkeennan mid ka daran buu marayay carabina ay ku dullowday cisigeediina ay ku weyday ummadaha kale waxyaabaha kale ay kaga dambeeyeenna way ka mid ahay iyaguna qabiil bay ka dayi jireen itaalkooda iyo arrinkooda dadka ku xeeranina ummadnimo wax ku dooni jireen boqortooyinkii hareerahooda reer faris iyo reer ruumiyo ummadnimay wax ku raadin jireen sidaasaa iyagu ay ku hoos yimaadeen ummadaha kale qur-aanku magaca jaahiliya la yidhaha buu isticmaalaa qabiilkoo si qaldan loo isticmaalo ilaahay isagoo ka digaya waxau ihi jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya xamiyata aljaahiliya xamiyata aljaahiliya waa diin la-aantu cadhaday lahayd ayaa keentay inay islaamkana u diidaan marka xumaantay leedihiin nusuusta ka digaysa un baynu qaar ka mid akhriyaynaa si aynu isu baraarujinno oo qofku qabiilkanuu wax ku miisaamaya uga hadho ee qiyamka laga dhigtay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddan markuu la hadlayuu ka wacyigelinaya kuwa hore iyo kuwa dambe iyo inagaba waxau ihi laysa mina man dacaa ilaa casabiya walaysa mina man qaatala calaa casabiya walaysa mina man maata calaa casabiya wuxuu tilmaamayaa inaan isqaban karaynin islaamka inuu qofku ku dhaqmo iyo inuu qabyaalad isticmaalo dhinac kasta nolosha inuu qabyaaladu isticmaalo marka wuxuu ihi annaga naga mid maaha muslimka iyaga qofka halkudhigiisu yahay qabiil ee ku dagaalamaya ee ku dhimanaya waxau nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale saxiixa ahaa meelaha had iyo jeer kibirku uu ka yimaada inuu qabiilku ka mid yahay waxa kibraaniyadda la yidhaahda iyo isla weynaanta qabiilku waa asalkeeda wey markaa qofkii mutawaadic ilaahay isu dhuldhiga ma noqonayo inta uu qabiil iskula weyn yahay nabigu waxau ihi ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yabqiya calaa axadun calaa axad walaa yafqara axadun calaa axad ilaahay waxyi buu igu soo dejiyo wuxuu ii waaxyooday tawaaduca ogaada oo ilaahay isu dhuldhiga si aanay dadku isugu faanin oo qofna qofka kale aanu ugu dulmiyin qabiil uguna faanin ila faankaa laftiisa dulmiya marka isma gelayaan tawaaduca addoon ilaahay oo alla yaqaano edabla inuu qofku noqdo iyo inuu qabiil ku faano siduu nebigu caddaynaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu islaamku u yimid ee uu dadka ka jafay ee uu ka joojiyey ka mid yahay qabyaaladda noocan oo kale ah aynu maanta cusboonaysiinee casriga inoo ah nebigu waxau ihi ina allaha qad adhaba cankum cubiyata aljaahiliya wa fakrahaa bilaabaa inamaa huwa muuminun taqiyun aw faajirun shaqiy annaasu banu aadam waadamu khuliqa min turaab walaa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa waa nusuus aynu akhriyayno oo la isku akhriyo o la dhaafo oo lagu dhaqmin ilaahay wuxuu idinka tagsiiyey buu nebigu markuu islaam idin siiyey wuxuu idin weydaariyey cubiyat aljaahiliya naxligii jaahiliyada
ينعب شيها إلهي وفخرها بالآباء يفانك آبياش اللي فانيين طلابت اللي قراعه dadku maxay u qaybsan yihiin ilaahay agtiisa iyo umada sharafta la agtooda inama huwa mu'minun taqi wa qof ilaahay rumaysan oo ilaahay ka cabsanaya aw faajirun shaqi ama qof falxun oo deegul daraystay maxay isugu faani dadku waa ilma bani aadam nabigu aadamna ciid baa laga abuuray arab iyo ajam isuma faani karaan kuma kala sareeyaan illa bitaqwa ساسو رسولك عدي صلى الله عليه وسلم waxa laga dhaxlayo ayaa uu nabi maxamed xusay calayhi salaatu wasalaam ummadu haday ka tagi weydo qabiilka gobanimay ku doonayaan oo landheeray ku doonayaan oo sharaf bay ku doonayaan intaba way ku waayeen ummadaha dhexdoodana haday qabiilka ka hari waayaan way hoos mariyo way duloobi doonaan adduunyada aakhirana hadalkeeda badaa nabigu waxa uu kullukum banu aadam wa aadam khuriqa min turab ilma bani aadam baatin aadam naciid baa laga abuuray wala yantahiyanna qawmun yafkharuna bi aabaa'ihim aw la yakununna ahwana ala allahi min al-ji'lan wallahi in iska dayn buu dadka qaarkood oo reerahooda iyo aabayaashooda iyo dhaladkooda ku faanaya haddii kale ilaahay agtiisa waxay ka liidan doonaan xaar walwalka bahalka la yidhaah xayawaanka yara ku nool urta quraanka kariimka ilaahay ummadda uu la hadlay waxa uu tilmaamay inaan la dafiri karayn la diidanayna dadku inay u kala nool yihiin qabaa'il iyo shacbi iyo ummado macnaha dhaladkoodu caynkaaya way abtirsiimo kala leeyihiin taasi wax la diidi kara maaha qaraabadana waa lagu xidhiidhiyaa guurkana waxa lagu eegaa cidda guurkeedu xalaal yahay iyo ciddu xaraam yahay waxa la isku dhaxlo way marka sida saxda in loo isticmaalo waxyigu ma diidana ilaahayna waxa uu waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu ya ayuha an-nas inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha labi yaddigun ba ka soo wada jeedaan oo idinka abuuray buu ilaahay waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila qabiilooyin waaweyn iyo shu'uub intaba waa leedi laakiin waa lita'aarafu la litafakharu si ay isugu faantaan ma aha arinta faan ilaahay ugu ma tala galno si dadku u dhigaan waa si la isugu garto inta aynu sheegnay arintani ma aha wax lagu nabad galo laakiin waa wax lagu halaagsamo sidoo kale haddii qabiil lagu nabadgeli lahaa waxaa ku nabadgeli lahaa ambiyada ilaahay iyo dadkii wanaagsanaa ciddii ka agdhoway ee iimaanka kaga leexatay qur-aanku wuxuu ka warramay nebi nuux calayhi salaam inankiisii oo isku ay qolo ahaayeen dee inankiisiiba ahaa wuu halaagsamay markuu diintii iyo iimaankii kaga baydhay wanaadaa nuuxu rabbah faqaala rabbi ina bnii min ahli waina wacdaka alxaq wa anta axkamu alxaakimiin ilaahay dee inankaygiina dadkaa hadhay buu ku jiraan doonida soo raacay wuu halaagsamaya dee ballanna waad ii qaaday inaad ehelkayga nabadgelinaysa adiguna dee xukunkaaguma qalloocno oo axkamu alxaakimiin baad ilaahay baa u jawaaba wuxu uhi yaa nuux innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix aw camila gayra saalix nuuxow kani kuguma tirsana buu tolkaaga maaha tolka dhabta ilaahay wax ku badbaadiyaa tolnimadu ilaahay wax ku badbaadiyaa waa iimaanka iimaankiibuu kaaga hadhay waxaan wanaagsanayn buu walaaqayaa u wadaa marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa oo ay nasku inoo cadaynayaa wax lagu badbaado inaanu ahayn qabiilku ilaahay agtiisa qur-aanka kariimka rabbi waxa uu ku hambaliyey asxaabtii ridwaanullaahi calayhi maalmihii adkaa la dagaalamayay iyagoo aan qabiilka eegin ee iimaanka ka run sheegay maalintii adkayda beder إذ ولبا تاريخ بأدون كرهبة قفنا تاريخ ونكسب برهبة قفنا تاريخ فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سألك سؤال هاي كوهم بليي قف إيمانك كرني هاي وإلهي رميسان وآخرة رميسان هل ميسي إنه حريرنا يجعلي هاي دد إلهي الرسول كدقال كل شيء الدين الآن كالصعدة أبياشو هذا هدي دون يعني نمذو هذا ولا له هذا حكتذو هذا قفك أدية القبيل كالصعدة وهيريه هنكي سموينا وحدونا يا بهالشيكتين waayo horumarkii waa ka soo horjeedaa dhinaca diinta iyo dhinaca dunyada iyo dhinaca dalka mar haddii dadku kala goosmaan ay goosama kala noqdaan waxaa macruufa dad qiimo badnaana in la riixayo oo diin iyo dal iyo dadba wax tari lahaa dad xaabadhoosahoo liitana in lasoo urursanayo taasaa macruufa intee qof sharaf leh oo qiyam leh oo diin leh oo dhaqan leh oo tacliin leh lagu riixaa oo lagu reebaa oo cid badbaadin lahay sidaa daraaddeed qofkaasi mar walba waxa uu doonaya ma helo hadduu diin wanaagsan doonayo dadkii uu kala kaxeeyo heli maayo hadduu dunyo helayo cid wax ka iibiyo heli maayo hadduu siyaasad doonayo ummad badan oo u codayso soo saarta heli maayo ilaa hoos buu sii hadlayaa hoos buu macaashayaa haddii uu doonayo inuu hankiisa weyneeyo waa inuu ummadnimada islaamka ku socdaa si uu caalami u noqdo صحابتي أك رسولك صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبو بكر القرش أبو بكر قريش يا سلمان الفارسي ورير فارس كسوتش هذا بلال الحبشي كسوتش هذا وده عالميين بين غيان مركز قبيلات دي كسوق أنا الديني إسلام كولا لوبين وضدك حدقها هي تصالها إنه نقول الهاوي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وحو النبي عليه الصلاة والسلام إن بريا ونو شيء وحن لا يدعو كلا كحين تا فعل درين كعنصرية وكشرو إن يدك مسلمين تكرر إرادان يكفوا قادان ويكون توبان حتى وحن لا استعمال يهم نقضى مصطلحات إسلامية أري بحين إسلامية حتى هذه الاستعمال ويري بحنتي إسلامك وقلابها الله استعماليه هدي عنصرية دي أي كم وقت الله استعماليه وممنوع ومرفوض أصحاب طلبة كم إذا بايس السيغيهم مدبا وحولي الله يا أنصاره متكلنا وحولي الله يا مهاجرين ولا بقى رأي دي نصوص طاي سوغيس أنصاري يا مهاجرين أنا بحين لو أقول يهوي لكن مركي الله استعمالها بقبيالة ذي ذو كلام نبي قود دي فيا وحول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهرك المباشي قبيالتي بسوع للسنانار دمارو وليد دحجوغا أيو لي النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة وروي أريساي اسكتا يب الرسول كله صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أمدا نقوم من نفشاكت سيبا أمدي عربية بهاشا سوحي تهي فهميس مركي الدين قاتين إسلام قاتين qabiilkii iyo qabyaaladii ay wax ku qaybinayeen iska daayeen inay horumareen oo ay badbaadeen oo ay halaagii ka koreen yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم لهي وحلا حرق إلهي وذا قبسده دينته وإسكجتك وحا كلا ودان حركها كلا قاية نعمة إلهي وذي السيين الدب حصوصت إذ كنتم أعداء مركع علكا هيدين فأصبحتم بالنعمة إخوانا إلهي النعمة دي سيبك ولا لو ذينو دينته وكنتم على شفا حفرة من النار قد قركيبا تاغنيدين قد نار قركيبا تاغنيدين إسلام ككور فأنقذكم منها الله إذن كبت بادي كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون هذا هنون إيسان هنون جيدان آياتها يجي إلهي دين عديب تاريخ ذا عربت يجاهلية ذا اسمه قالك إلهي بديب أخري وأديك دونتا وحمضان إنا ينفهمنا وحين نهايستي أينا نبفانين با الله وحر ألم نخلقكم من ماء مهين قفك بيها يربى لغا أبو ري انتا وصعونا ينوح علوشي سكو حنبارسي هاي وحاو هدو تحمامك قين دونه هدو تنا
waxa uu noqonayaa bakti uu darxigu galo marka uu caloosh marka uu dhinto qabriga dhexdiisa galo alaabta aynu ku warwareegayno iyo qabyaaladda aynu wax ku tusmaynayno aynu wax walba ku qaybsanayno ee wax walba lagu qiimeynayo dad lagu soo dhaweynayo dadna lagu riixayo aynu ogaana badeecadda shaydaanka inay tahay badeecadda shaydaanku uu iibgeeyo iyo furaha ugu khatarsan ee sharka uu ku furo rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ina ashaydaana qad aysa an yacbudahu lmusalluuna fi jasiirati alcarab walakin fi taxriishi baynahum shaydaanku wuxuu ka quustay in inay dadka ilaahay caabudee tukadaa ay ku caabudaan jasiiradda carabta wuu ka quustay walaakiin waxaanu ka quusan inuu suuq ku hayaa inuu iyaga isku diro oo dariiqada noocaasa qabiilkaa uu isticmaalo ku dhiirigeliyo waxaynu ku soo ururinaynaa markaynu doonayno horumar inaynu diin iyo dunyaba ka horumarno iyo dalba cudurkaa lasii faafinayo ee alaabta lagu baahinayana loo helay ee dadweynahana lagu kicinayo dabadi iyo gudaba ee mutacalimkii iyo suldaankii iyo ay horseed ka yihiin dadku ku dayanayay in ilaahay looga toobadkeena baa waajiba ummadana ummadnimo lagu wado islaamnimo lagu wado hankana la weyneeyo waxaana la ogaado diintu inaanay ogolayn wax xaaraan oo dembiya inuu yahay in dadkii muslimiinta ah ee walaalaha ahaa xuquuqdoodii aanay sinnayn qaarkood la xaqirayo qaarkood lagu xadgudbayo qaarkood iyagu doonayaan siday yihiin shacbullaahi almukhtaar inay iska dhigaan dad mudan oo dadka kale walaalahooda ee muslimiinta ah ka mudan oo xuquuq gaara leh idan marka arrimahaasi jeer aynu usoo noqonno fadhiidkaasaynu ahaanaynaa cabashada iyo cataabka iyo warwarkaasina wuu inagu jirayaa marka in dib la isugu noqdo ilaahay loo toobad keeno oo dadka diintaasi anfacaysa lagu ururiyo iyo ummadnimo taynu ku waaninayna waa taa allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة